waaweyn kaydad saad iyo baasaboorre ay leeyihiin ajaanib ka tirsan. waxaa la helay buugaag ay ku qoran yihiin dhammaan degmooyinka Soomaaliya inta isu jiraan. taa micnaheedu waxa weeye waddankan qabsanana weeye min bahalkii sheeg Ras Kamboni ilaa Ras Casayr degmo kasta oo Soomaaliya ku taala inta masaafo isu jidho buugaag ay ku taala baa la hayaa. waxaa la helay cadeymo badan oo muujinaya inay waxaan maafi ahaayeen tacdiyo badan ay geysanayeen oo dumarka u badan. waxaan arkaynaa inay hawar dugaagii mataqaanaa ama xayawaanka dhulka ku noolaa gebi ahaanba ay dhammaysteen, inay macdan gurteen, inay wax badan qarribeen, inay lacag footokoobiya samaysteen iyo dukumiintiyo aan helay inay dunuub badan ka soo galeen. wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in wali dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhinaca ciidamada ah ay ciidamada Puntland ay ka wadaan gobolka Bari, khaasatan dhulka buuraleyda ee gobolkaasi gaar ahaan aaga Calmiskaad, halkaasi oo ay ku xoogan tahay kooxda Daacish. ciidamada Puntland ee la dagaalamaya ururka Daacish ayaa isku fidinaya deegaano horle, waxaana dagaalku ka soconaya dhul fog kaas oo ay ka gaareen guulo kala duwan. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciribtirka kooxda ururka Daacish ee Puntland ayaa waxaa maanta ciidamada ay kala wareegeen talisyo waaweyn oo kooxdu ay lahayd, khaasatan ay ku lahayd buuraleyda hoos tagta gobolka Bari. sidoo kalena waxaa la qabtay goobo muhiim ah oo laga helay xogo muhiim ah oo sir ah. horay ciidamada Puntland ayaa intii uu socday howlgalkani waxa ay ku burburiyeen ugu yaraan ilaa 8 talis oo ururka Daacish ay ku lahaayeen dhulka buuraleyda ah, gaar ahaan toga loo yaqaano Ilcameyr ee buuraleyda Calmiskaad, sida ay Puntland ay ku sheegtay qoraal ay soo saartay. sidoo kale waxaa la soo riday diyaarado badan oo drones ah oo ay adeegsanayeen xubnaha kooxda Daacish ee ku sugnaa dhulka buuraleyda ee gobolka Bari, halka kuwa kalena la qabtay. xaaladda ayaa weli kacsan iyadoo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayo goobaha ay howlgallada ka socdaan ee aaga toga Ilcameyro ee buuraleyda Calmiskaad. ciidamada Puntland ayaa sidoo kale waxa ay gacanta ay ku dhigeen dukumiintiyo ay ku qoran tahay xogo sir ah iyo weliba aqoonsiyo kala duwan oo ay leeyihiin dad ajaaniba oo shisheeye ah oo u badan Carab. saldhigyada inta badan ciidamadu ay qabsanayaan ayaa waxaa lagu arkayaa sahay iyo weliba agabyo kale oo kala duwan oo ay adeegsanayeen kooxda Daacish oo goobahaasi ay uga carareen. qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Puntland oo la hadashay warbaahinta ayaa shaaciyay goobahaasi bal xogihii ay ka heleen iyo weliba siraha ay halkaasi ugu tageen iyo waxyaabaha ka yaabiyay ee halkaasi ay kula kulmeen. intaba rabaa in aan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland inaan u sheego waddankan in lagu soo duulay oo nimanka aragteen hadda janamadu iyo ka sheekeeyeen oo dukumiintiyadoodii la hayo oo carabta u badan oo baasaboorradoodii la hayo oo la soo bandhigi doono meelaha ay ka soo duuleen iyo waxa ay doonayaan. waxa weeye waa waxa cajiib weeye. waxaa la helay buugaag ay ku qoran yihiin dhammaan degmooyinka Soomaaliya inta isu jiraan. taa micnaheedu waxa weeye waddankan qabsanana weeye min bahalkii sheeg Ras Kamboni ilaa Ras Casayr degmo kasta oo Soomaaliya ku taala inta masaafo isu jidho buugaag ay ku taala baa la hayaa. taas marka waxa inay cadaynaysaa inay tahay ujeeddo fog oo jiritaanka Soomaaliya la rabo in lagu dabargooyo. waxyaalo badan baa ka soo dhexbaxay saldhigyadii la tegey. waxaa la helay cadeymo badan oo muujinaya inay waxaan maafi ahaayeen tacdiyo badan ay geysanayeen oo dumarka u badan. waxaan arkaynaa inay hawar dugaagii mataqaanaa ama xayawaanka dhulka ku noolaa gebi ahaanba ay dhammaysteen, inay macdan gurteen, inay wax badan qarribeen, inay lacag footokoobiya samaysteen iyo dukumiintiyo aan helay inay dunuub badan ka soo galeen dhulalkoodii. waxaan kaloo helay dukumiintiyo caddaynaya lacagihii ay qaadi jireen iyo liisaskoodii iyo dadkii lambaradii ay ku diri jireen, iyo waxaanu ogaanay shirkad kasta oo lacag u didhay, nin kasta intuu bixiyey, lambarkay ku shubtay, akoonka ku shubtay, intaba. waxyaalahaas ay ciidamadu noo keeneen oo cadeymaha waxay muujinayaan maaragtay jirnimada iyo maafiyanimada meesha ka jidhay. sidoo kale waxa ay ciidanku noo sheegay inay niman baqaya ahaayeen oo cararaya oo kabahooda ka cararaya oo sida cadeymaha ay noo soo bandhigeen markaan aragnay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
halkan waxaad mar walba si toos ah uga daawan doontaan xogaha ugu dambeeya ee howlgalka ciidamada Puntland ee ka wadaan gobolka Bari anagoo idiin soo gudbin doona xogihii ugu dambeeyay fadlan ku soo biir bartayada YouTube-ka oo subscribe saar barnaamijkana noo like garaa oo share garaa si uu dad badan u gaaro mahadsanidin